بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد waxaa jirta nin siyaasi oo siyaasiyiinta Soomaalida kamid ah inkastoo ay mowduucaygu siyaasadda Soomaalida aan ahayn marka ninkaas waxaan uga hadlayaa waa qof dadka soo hor istaagay wuxuu nimayo mid baan idinka codsanayaa waxaan iska codsanayaa markii aan wasiirka ahaan jiray dadka Soomaalida ah meeshu markaa maamulka uu ku jiray waan dhacay lacagtoodii waan xadi jiray marka waa public buu hadlay mooto wax publicna waa public soos marka dhibaato ma lahayn laga hadlo marka dadku hor hadlaan marka wuxuu doonayay inuu yiraahdo waan lacagteen dhacayaan ku xanuunsaday marka waan intaasan waa nin qirteen wax dhici jiray anigu ala kulli xaal laakiin raganimo leeyahay inuu qirtaba hal cafiya buu yiri soo sax ma in la cafiyana taqadayda maaha laakiin waa uu codsaday laakiin waxay ka turjumaysaa corruption-ka dadka dawladda Sacuudiga in yar ay dhaahdo ka zoona dawladda Sacuudiga waxba ka hadleen laakiin waxa jirta maalin dhaweyd waxa bilaabay ninka boqorka ka ahay inuu bilaabo nidaam la yiraahdo la dagaalanka corruption-ka shalay baa la soo xiray nidaamkii la corruption-ka la dagaalankiisa markay soo saareen report-kii dawladda Sacuudiga waxay sheegtay inay soo celiyeen 140 ilaa 200 bilyan maaha million billions oo dollar oo laga qaaday dadkii maamulka ku jiray ee dhacay xoolaha dadka muslimiinta idan iyaga dawladda Sacuudiga soo report gareysay markay bilaabeen dagaalka 200 bilyan mise wax la mid ah billions ayaa laga soo qaaday intii yareeda la xidhay hadda oo dhamaantood la leeyahay waa lacagtii tuugtii muslimiinta aad dhacdeen I think aniga markaa maxaan tan u keenay ila dhageysta markaa qisadan waan inaad ogaataan marka anagu dadka ugu yeedhayno mushkilad maaha in la bedelo qof oo qof kale lagu bedelo mushkilad waxa nidaam corruption ma bedeli karnaa nidaam xoolaha dadka dhacay ma bedeli karnaa iska daa haduu kan yimaado mid kala dhaco labadiba ay corrupted yihiin maxay soo kordhisay yaan ugu yeedhana waxaan ugu yeedhaa dadka mabaadi ila dhageysta marka ninkan waa uu qirto wuxuu waxbaan dhacay hal ay cafiyo qaar badan oo kalena waxa laga yaabaa in iska qoomameeyaan waxay dhaceen xaraan tahay qaarna waxa laga yaabaa billions dollars ay digtaan meel kale iyo meel aan la garanin qaarna waa in la billions baa laga soo qaaday laakiin la dhageysta tan caashamad xafaaduma ma taqaana bintu maxamed sallallahu alayhi wasallam soo gabadh nabigu dhalay maaha ali ibn abi talibna soo ma taqaanaan soo iskuma ahayn reer isu guuriyay nabigu alayhi salaatu wasalaam ila dhageysta markaa qisadan maalmaha kamid waxa wada sheekaystay ali iyo Faadimo wuxuu ku Faadimoy waad aragtaa dhibtayna haysta aniga buu yiri waxaan u shaqeeyaa biyaha dadka maaragtay soo dhaamiya dadku u dhaamiya biyaha intuu ceel ka tago wuxuu ceelkii sidii aan u dhaaminayay ayaa dhabarkii laabtii bay xanuuneen adigana iyaduna waxay tiri wallahi adigana calow san wuxuu riiqayay ay gacmihii qalaleen kusuuda aabaha intaad u tagto wuxuu yar adooma loo keenay intuu qaar iibiyadii mid hayna si shaqaalo inoo shaqeeya ma ila socotaan talo hal yar shaqaalaha inoo shaqeeya annagu waan dhintay adna waad dhimatay gabadhiisi baa tabal u tago inoo marka uu timid waxa tira aqalkee soo gasho waxa tira salaamu calaykum ya aaba iska waran wa calaykum salaam marka wuxuu yiri maxaad soo doontay markii tiro maxaad soo doontay la way garanaysaa aabaheeda waxa tira aabaha uu midaan ku soo salaamo way iska xishootay inay wax weydiisato waxaan midaan ku soo salaamo okay way soo noqotay calay ku soo noqotay xataa calab waniyo deewan u tagay aabahay sallallahu alayhi wasallam markii aan la hadal baan hadli kari waaye hadaa rabtay inuu wax weydiisato bal namar aan israacna labadeenu marka way soo raaceen wuxuu maxaad rabtaan wuxuu rasuulkii ilaahay sidii aan bahashi biyaha u dhaaminaya dhabarkii laabta bay xanuuneen dib bay haysata islaantiina waa tan iyadana gacmii baa bararay dimaad nagu caawisid mid noo shaqeeyo shaqaalaha ilaa wakiin ilaahay xoolaha ku keenay waxayna laba jeeg ku qorto midkii milyan adiimka maanta tahay ma iyaga kugu weydiisanay iyaga hore sii qaadan lahaa maanahay iyaga sii qaadan lahaa wuxuu yiri intuu sidaa u eegay ay wallahi wuxuuga yaryar baa la soo qafaasho adooma iyagana waxaan u hayaa waxa yar ka soo baxa in dadka ahlu sufaha la yiraahdo masaajidka masaakiinta fadhiya ayaan siinaya wallahi buu wixii aanu hayay masaakiintan cunto iyo cabid ku siiyo inaan idinkeedin siinaynin muxuu yiri masaakiinta xoolahoodii dadka aan u qaybinayo hadaan idinkeedin siiyo waxa weeyaan arrintii rogaas masaakiinta xoolahoodii waaya marka nimayo dhagiiso waxba idin ma siinaye ilaahayna tawakkalo iska taga horta ixtiraamka aan u haynin waa maxay marka saa u hor istaagtay qisada qof aanantiisi oo dhiban
iyo caruurtiisii inankii ay ilmaadeerka ahaayeen oo dhiban caruurta awowga uu ahaaye caruurta qura haysta aqalkooda lagu korinayay dhibta intaa la haysatee ku odhan karaya may dad idinka mutay baa jirta masaakiintii masaajidka dhex fadhiday kuwaasaa waxaan yar u haya wuxuu yidhi markaa way iska yimaadeen aqalkoodii bay ku soo noqdeen xoogay kadib buu ka daba yimid wuxuu yidhi rumida idiin sheega wax ka fiican baan idin baraya marka salaad kasta kadibba 3 jeer tasbiixsada 3 jeer alxamdulillah ista wax haysataan 4 waa la yidhi 3 allah takbiirsada habeenkii markaad seexanaysaana intaa in leeg sameeya wuxuu odhan jiray cali ma taqaana mar kasta wuxuu ka sheekayn jiray qisadan wasa wuxuu yidhahdaa mar kasta markuu sheekeeyey qisadan ayaa wuxuu yidhahdaa intaasuu nebigu i baray sala allahu alay wasalam ilaa iyo maalintu i barayna kama aanan tegin maalin qura wuxuu i baray sa qaar wuxuu yidhi xitaa maalintii dagaalkii weynaa aad la gashay sifiin la odhan jirayna kamaa tegin siduu xitaa habeenkaana kama tegin markaa u fiirso nebiga calayhi salaam inkastuu weydiistay lacag iyo xoolo والباقيات الصالحات خير عند ربك سماهن ثوابا وخير مردا سماها وحسوا بري تاما هتينو ما انت تصبيح الحمد لله وحفي عموين لا سميات كارت كنت اني تورس تاني سوحويا قف كستو اخريان اذا عنوس waxaa jirta qaar transparency qolo la yiraahdo jirto muslimiinta qorta wadanka markasta ugu dambeeyo wadamada ugu corrupted-ka badan waa wadamada muslimiinta Soomaalidu waa number 1 transparency group iyaga ugu horeeya xagga corruption-ka iyo hadaba dadka muslimiinta ee corruption waxa uu ka imanaya kii wasaaradda hoose dhacaya kii baa dhacaya qaar baa ku odhanaya kii la doonay inuu tax ka keenay inta ku yimaado ayadoo runta albaabka xumaan bixin maxaa la yiraahdaa cashuurti uu ku imanaya wuxuu ku leeyahay dartin cashuurta ka daayana bixiso aniga si hadii kale albaabkan ka la baxaya waad siinaysaa dhago iska soconaya ilaa hore u socotay adi markaa fiirsato inaan ogaanaa dadka muslimiinta haba ahaadaan xitaa organization yar in hayaan waxyaabaha yar ay hayaan waxay u hayaan ummadooda maanta yawmal qiyaamahana waa la weydiinaya haddii aanay nidaamada galbeedkaad maanta ku dhex nooshin in badan oo ka mid haddii lagu arko corruption-ka dadkeena waa la kuwi jirtaa corruption laakiin maalinta la audit gareeyay corruption-ka intaa leeg la soo saaray dawladda dhan baa ku burbura dawladdii liberalka ninka Christian la yiraahdo wadankan hayn jiray waxay ku burburto nidaam yar corruption oo la baabiyo Paul Martin maxaa loo dooran waayay Soomaaliya corruption-kii qoladii liberalka ka horeeyay lagu yeelay wadankan ayaa baabiyay dawladaha dhan haddii intaa leego corruption-aadka jira la soo saaray way corruption-ku waa wax aad u xun waana xoolo aanad lahayn ay dadku qaataan I think waxaan isleeyahay wallahu a'lam marka sidaa u hor istaagto qisada nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam imka qaashadaan idin la wadaagay ma quraha ka qaadan dadka subxaanallaah alxamdulillah baray waxaad ka fahantaa sida u diiday inay dadka masaakiinta ay qaataan xoolahooda la siiyo reera una aan dadaan lahayn soo maaha marka waaqaca ku yeeto waaqaca ummadaheena maxaa kala soo baxaysa idinkan idinka tagaya wallahu subhanahu wa ta'ala sallallahu ala sayyidina Muhammad